keeni kara in suntu ay u gudubto jidhkaaga sida qaadashada cuntada aan nadiif ahayn sigaar cabista adigoo aan samaynin wax jimicsiyo iyo weliba hawada oo wasakhowda arrimahaas oo dhamina waxay qayb ka yihiin waxyaabaha caawiya inay suntu u gudubto jidhkaaga dhaqaatiirtu waxay ku adkaysanayaan in jidhka aadamaha uu isaga laftiisu iska saaro oo iska yareeyo sunta ku jirta xilliyada kaadida iyo dhididka waxaana jira calaamado muujinaya in jidhkaagu sumaysan yahay oo ay sun badani ku jirto lama huraanna waxa ah in laga takhaluso suntaas oo la iska saaro haddaba sidee baad ku garan kartaa in jidhkaaga ay sun badani isugu timid haddii muuqaalka carabkaagu isbedelo oo uu ama huruud noqdo ama caddaan noqdo taasi waxay tilmaamaysaa in sun fara badani ay dhiiggaaga la socoto inaad iska saartana loo baahan yahay haddii jidhku ku cuncuno oo aad had iyo jeer xoqitaan ku hayso adiga oo weliba ilaaliya nadaafadda maqaarkaaga ayaa waxa ay noqonaysaa inaad ka fikirto sida aad jidhkaaga uga saari lahayd suntan keenaysa cuncunka ee dhiigga la socota madax wareerka joogtada ahi waxa uu noo sheegayaa in qayb ka mid a jidhka aanay shaqadeedii si rasmiya u gudanaynin qulqulka suntan ee jidhkaaga dhexdiisa ka socdaana ay taa sabab u tahay adigoo mar walba daal dareema xitaa marka aad seexato oo ah xilliga ay dadku firfircoonaanta la soo kacaan ayaa waxay muujinaysaa inaad u baahan tahay inaad tijaabiso sidii aad jidhkaaga sunta uga saari lahayd deganaansho la'aanta xilliga hurdada iyo hurdada oo lafteedu kugu yaraata ayaa qayb ka ah calaamadaha muujinaya in suntan jidhkaaga ku jirta ay tahay mid heerkeedu sarreeyo dibnaha oo ku dildilaaca qallaylna had iyo gooraale ka muuqdo ama midabkii dibnahaagu lahaayeen oo isbeddela waa markhaati cad oo muujinaya in jidhkaagu sumaysan yahay waajibna ay kugu tahay inaad iska xalaalayso haddaba qaybta dambe ee barnaamijkeennan waxaynu ku eegaynaa sida aad jidhkaaga si fudud ugaga saari karto sunta adiga oo aan kharash badan gelaynin waxaana jira dariiqooyin badan oo aad sunta jidhka kaga baabi'in karto kuwaasoo ay ka mid tahay adiga oo qol diiran isku xidha oo dhidid badan kaa yimaado ama adiga oo caadaysta cabbitaanka sharaabka freeshka ee khudradda laga sameeyo waxaana jira sharaab gaar ah oo maalin gudaheed sunta kaaga saaraya jidhka sida marka aad isku qooshto sinjibiisha liinta iyo tufaaxa kadibna sharaabka cabba xilli hore oo subaxnimo ah oo ay calooshaadu maran tahay waana sharaabka keeni kara inuu maalin keliya jidhka kaga sifeeyo suntii ku jirtay isla markaana uu awood u yeelo unugyada difaaca jidhka oo gaadhka ka hayn doona inay sun kale si fudud ugu soo tallowdo jidhkaaga waana tijaabooyin iyo talooyin caafimaad oo ay bixiyeen khubarada caafimaadka ee caalamiga